وعلى آله وصحبه وسلم. السلام العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. waxaan ku soo dhex jirnay suurat almaa-ida. darsigu caawa wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 6 oo suuradda ka mid ah. waxaan ku dhex jirnay qaybtii hore ee suuraddu ay kaga hadlaysay axkaam badan oo ku saabsan ibni aadamka iyo noloshiisa. aayaadkii xalay axkaam badan bay ka soo hadleen. aayaddani waxay ka hadlaysaa markaa weysada, salaaddii bay ku saabsanta. salaadda weliba qeyb ka mid oo dahaaro qaadashada salaadda loo dahaaro qaato ayay ku saabsanta. yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow, idaa qumtum haddaad istaagtaan ila asalaati salaadda haddaad isu taagtaan, haddaad isu taagi rabtaan, faqsiluu dhaqa wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa, wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa, ila almaraafiqi maca almaraafiqi, suxullada lala qabo, ilaa suxullada laga gaadho maca suxullada dhaqa. wamsaxuu waxaad masaxdaan biru'uusikum madaxyaalkiinana masax, wa arjulakum lugihiinana dhaqa, ila alkacbayni aanqowyada inta laga gaadhay maca alkacbayn. wa in kuntum haddaad tihiin junuban kuwa janaabo qaba haddaad tihiinna fataharuu qabaysta. wa in kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa xanuunsanaya aw amase calaa safarin aada socod dushii tihiin, aw amase jaa-a uu yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka midi min alghaa'iti uu ka yimaado meeshii lagu dangudanayey, aw amase laamastum aada u galmootaan alnisaa'a haweenka aada u galmootaan oo falam tajiduu aydaan helin maa'an biyo, fatayamamuu waxaad u qasadaan saciidan carro u qasta tayiban oo macnaha wanaagsan, carra yacni daahira u qasta, oo famsaxuu masira oo ku masaxa biwujihikum wajiyaalkiina iyo wa aydiikum gacmihiina minhu xaggiisa kaga masaxa. carradaas xaggeeda ama qaar ka mida gacmihiina iyo wejiyadiina ku masaxa. maa yuriidu allaahu alla ma uu doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax cidhiidhi ah, wax cidhiidhi ama culaysa inuu alla idin saaro ma doonayo oo diinkiina ku saabsan. walaakin yuriidu wuxuuse doonayaa alle liyutahhirakum inuu idin dahiro idin nadiifiyo, iyo waliyutima inuu dhammaystusaysaa in wejiga in la dhaqaayo iyadana ay waajib tahay. wejiga dhaqitaankiisa, wejigu waa ilaa meesha macnaha waxa weeyaan foodda ay timuhu ka dhashaan ilaa laga gaadho lafgadheedda laga gaadho waa dherarka wey. ballaca marka la yidhahdana labada dhagood inta udhaxaysa wey, intaasaa wejiga la yidhaahdaa, iyadana dhaqa wey. dhaqitaankiisu waa rukni arkaanta wuduu weysada ka mida wey. waxay gudageliyaan culimmada qaarkood oo odhanaya yacni luqluqashada iyo sandaarsigu waa waajib, wujuuhdaasay gudagelaysaa bay leeyihin. oo wejiga waxaa laga wadaa wejiga iyo in alle inta ku dhex taallo oo sankii iyo afkii leh. sidaasi culimmada qaar baa qaba sida imaam axmed iyo keyrkiiba, oo waxay leeyihiin
sandaarsigiiyo luqluqashadu salaada weysada dhexeeda waajib weeye kadib baa waxaa la yidhi waxaad dhaqdaan labada gacmood dhaqa ilaa anqowga laga gaadho maraafiqdaasi ilaada lagu gudbiya wa aydiyakum ila almaraafiqi ilaadaasi bimacnaa mac ayaa loo badanyay in laga dhigo oo macnaha waxa weeye yacni aanqowyadu inay gelahay waxaan uga jeedaa macnaha suxulladu inay xukunka dhaqitaanka gelayaan oo aan la odhanaynin ayagu waa ka baxsan yihiinoo gacanta inteeda hore un hala dhaqo suxulladuna xukunka ma gelayaan sidaa ma ahe xukunka waa gelayaano in la dhaqay u baahanya ama yacni waxa weeye ilaada ayaa waxaa laga dhigayaa bimacnaa mac ama ma ahe xataa sideeda haddii lagu wado waxaa macnaha laga faa'iidaysanaya qawaacidda sharcigo maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun axaadiis daciifana waa ku soo aroortay yacni shaygu gacanta dhaqid qaybtii loo baahnaa in la dhaqee waajibka ahayd maba dhammaystirmayso intaa in lagu dara mooyaane marka waxa weeye in suxulka in la dhaqaayo waa laga maarmaan wamsaxuu biru'uusikum ayaduna waxay ku tusaysaa in madaxyada la masaxo madaxa in la masaxo yacni gacanta la mariyo wamsaxuu biru'uusikum qaabka loo masaxayo axaadiista nebiga ka sugan tahay salawaatullahi wasalaamu calayh oo waxaa loo masaxayaa labada gacmood inta biyaha lagu qooyo oo laysa saaro oo fooda lagaga bilaabo sida loo sii wado ayaa qadaadka la geynaya haddana waa la soo celinaya meeshii laga bilaabay baa lagu soo celinaya halkaa mar baa la masaxaya sidaasi axaadiista nebiga ku sugan tahay salawatullahi wasalaamu calayh madaxa in la wada masaxo miyaa waajib ah mise qaar ka mida in baa lagu kaaftoomi karaa khilaaf baa culamada dhexeeda ku jira khilaafkaasina wuxuu ku saabsan yahay oo uu ka dhalanaya biru'uusikum ba'da xarfuljarka ma tabciidiya mise waa ilsaaqiyo wey haddii la yidhahdo tabciidiyo weye madaxa qaarkii baa lagu kaaftoomi karaa wey macna waa shaaficiyadiiyo siday wataan haddii la yidhaahdo tabciidiyo ma ahee waa ilsaaqiyana yacni madaxa qaar ka mida laguma kaaftoomi karayo wey macna in aan madaxana qaarkii inaan lagu kaaftoomi karan in la wada masaxo loo baahan yahayna axaadiista nebiga ku tusiyo nebigeenna salawaatullahi wasalaamu caleyh madaxa masixiisu laba siyood unbuu uga sugan yahay in madaxoo dhan uu wada masaxay waa suganta waxaa kaleetoo sugan isagoo cumaamad qaba intuu fooda masaxay inuu markaa kadib cumaamadii isagoon simin cumaamadii dusha ka masaxay madaxana fooduu ka masaxay cumaamaddana waa ku dhammaystiray masaxeed laakiin madaxa keligii isagoo ah oo qaawan inuu qeyb ka mida masaxay qeybtii kalena iska daayay ma sugna axaadiista nebiga kuma sugna salawatullahi wasalaamu caleyh shaaficiyadu meeshay ka qaateenna ba'daasay yidhahdeen tabciidiyo wey waxaana xoog badan inaysan tabciidiye ahayn inayna tabciidiye ahayna waxaa ku tusaya aayadda aakhirkeeda marka tayamumka laga hadlayo famsaxuu biwujuuhikum bay tir famsaxuu biwujuuhikum yacni ficilku waa masxigii wey ba'duna waa iyadii wey marka taana isla markaasi ma ay odhanayaanoo shaaficiyadu ma qabaan inay tabciidiyo tahay ilsaaqiye inay tahay bay ogolyihin oo marka la tayamumayo wejiga qaar ka mid a lagu kaaftoomayaa ma qabaan shawaaficdu sidaa daraaddeed ba'du waa ba'di ficilkuna waa ficilkii yacni tabciidiyada ka daawaye wey marka madaxa in la masaxo ama haddii cumaamad aada qabto oo ay madaxaaga ku duuban tahay fooda intaad ka masaxdo inaad cumaamadda ku dhammaystiro dusha ka masaxdo iyo gambada haweenka iyo waxoogaa siibitaankada la adkaysanaya iska dhib badan tahay taasna iyadana waa la ogolay laakiin qeyb ka mida in la masaxaayey waxoogaa waxaad moodaa daliilku inuu ku xoog badan yahy waxaa kaloo iyadana la yidhi wa arjulakum sidaas aan hadda yacni qiraa'adaasi misxafka ku qoran ee wa arjulakum ah waa qiraa'o wey qiraa'o kalaa jirto iyadana sabciyo wa arjulikum odhanaysa laamtoo la hoos dhigo wa arjulakum markaan marno oo hadda macnaha sidan la yidhaahdahay waxay ku cadfan tahay faqsiluu wujuuhakum taasay ku cadfan tahay wejiyadiinna dhaqa waxaa kaloo dhaqdaan lugihiinnana dhaqa wejiga dhaqa oo gacmaha dhaqa oo lugaha dhaqa madaxii baa marka la dhexgeliya masixidiisii maxaa yeelay yacni xubnaha tartiibkoodaa saas madaxankadaasa la kala dhexgeliyey gacmihii iyo lugihii oo labadooduba xugunkoodu dhaqitaay madaxana xugunkiisu masixid wey labadoodii baa la kala dhex dhigay dhexgelintaa la kala dhexgeliyey waxaa loo daliishanayaa xubnuhu sidaa ay u tartiibsan yihiin ee sharcigu ugu talagalay dhaqitaankooda in loo kala tartiibiyo inay waajibto
oo adaad lugaha ka soo bilowdo ama gacmaha ka bilowdo wajiga ku xisood lugaha u dabamariso oo wixii isdabamarisaay inaysan weysadaadii asaxaynin saasaa loo daliishanaya maxaa yeelay yacni haddii ayna tartiibku waajib ahayn inta yacni mansuubaadka ahee iqsiluu ku camalfalayso ayaa la israacin lahaayo wa arjulikum baa la hormarin lahaa wamsaxuu biru'uusikumna waa laga dabamarin lahaa tartiibka loo qoray waxay keenaysaa marka waxa weeyaan qaabkii loo samayn lahaa in loo tartiibiyo macna wa arjulakum marka qiraa'adeennaas waa mustaqiima wax bushi a kuma jiro marka waa arjulakum lidhaho lugahana dhaqa inta aanqawyada laga gaaro aanqawyadana waxay ku jiraan kuwa la dhaqayay ku jiraan oo iyagana in la dhaqaa loo baahanya laakiin waxa uu khilaaf badan iyo buuq badan ka taagan yahay wa arjulikum qiraa'ada odhanaysa oo laamta marka la hoos dhiga ah maxaa yeelay markaa waxay ku cadfanaanaysaa bay leeyihiin ooy qolyo wataan biru'uusikum bay ku cadfanaanaysaa oo waxay noqonaysaa wamsaxuu waxaad masaxdaan biru'uusikum madaxyaalkiina iyo wa arjulikum lugihiinana masax oo lugaha miyaa la masixi mise waa la dhaqi in la dhaqa buu ahaa xukunkii la yaqaanay masax bay qiraa'adaasi keenaysa maxaa lagu ta'wiilinaya yacni jumhuurulmufasiriin qolo nimanka rawaafida la yidhahdo sheecada iyo bacd macnaha waxa way ahlulcilmi oo masalada iyadaa ku simbirraxday waxay yidhahdeen lugta waana la masixi karaa waana la dhaqi karaa qaarna waxay yidhahdeen xukunkeedu waa un masaxo dusha un wax laga taataabsiiyo laakiin qiraa'ada iyadaa waa la tawjiihinteedana waxaa keenaya nebigeenna salawaatullahi wasalaamu calayh inuu lugta masaxay kama sugna dhaqitaan mooye lugtu inay daboolan tahay mooyaane hadday lugtu daboolan tahay oo khuf iyo wax ku jiraan inuu masaxay waa ka suganta laakiin lug bannaanoon waxba ku jirin inuu nebigu dusha ka masaxay kama sugna axaadiistiisana kuma soo aroorin bal nusuus axaadiista waxaa soo aroortay diidaysa marka waa arjulikum qiraa'ada odhanaysay laamta hoos dhigaysahay waxaa la odhanayaa masxigaas haddii aad ku cadafto biru'uusikumna waxaad odhanaysaa masxigaa waxaa laga wadaa lugtu markay dadan tahay oo khuf iyo wax ku jiraan oo labada qiraa'o hadday iskhilaafaan qur-aanka waxay ka kala dhigan yihiin laba aayadood oo kala madax bannaan oo kale ka dhigan yihin xagga daliishiga marka la yidhahdo marka waa arjulakum qiraa'ada odhanaysaay waa hadday lugtu bannaanta wa arjulikum qiraa'ada odhanaysa hoos dhigaysana waa lugtu hadday macnaha daboolan tahay oo khuf iyo waxay qabto oo waa la masixi sidaasi macnaha waa tawjiih tawjiihaad kaleeto fara badanna waa ku jiraan oo wa arjulikum jerka waxaa keenay waa xarakatulmujaawara la yidhaahdaayo way darseen deriska ru'uusikum ay darseen bay ka qaadatay adiga waxa weye wujuuh icraabiya ku jirtee wa arjulakum aan iska marno teenna unbaa inoo fududay meeshaba hadday inoogu taal lugahana dhaqa ayaa la yidhi yacni aanqawyada laga gaaro aanqawyada iyagana waa la dhaqaya qolyo nebiga sal alla alay wasalam xadiista waxaa ku soo arortay maalin maalmaha ka mid a saxaabadu weysiisanaya wuxuu arkay qolyo aan lugihii dhammaystiroona meele ka banbannaa yihiin weylun lilacqaabi min annaar buu nabigu yihi salawatullahi waslamu caleyh yacni waxa weye dadka cidhbahooda lugaha inay dhaqaan rabaan haddana goobo ka tegay oo meelaha qaarkood aan biyihii gaadhsiinin ciqaab buu nebigu u sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh marka lugaha in biyaha la wada gaadhsiiya waa laga maarmaan intaa markii laga soo hadlo waa weyse qaadashadii aaway axkaamtii kaleete ee dhegihii iyo waxyaalihii kaleete iyo sandaarsigii iyo yacni axaadiista nebigaa caddaysay salawatullahi wasalaamu caleyh haddaad janaabo qabtaan ood junub tihiinna qabaysta buu alla yidhi subxana wa tacala intaasi waa xadadkii asqarka aw haddana waxa weye waa xadatul akbar oo ruuxu markuu janaabo qabo ama uu riyoodo oo mini ka timaado ama gabadhii uu dhiig ku dhaco ama xaaskiisa uu u galmoodo middaa iyada a waxaa qabaysta la leey ka qabaysta middaa iyada intaa markii laga soo hadlay waa haddii aada biyo heshaan haddaan biyo weyne ka warran xaalku see noqonaya ama biyihiiba lagu adkaadaan isticmaalkoodii oo ay cudur iyo dhib ay keensanayaan ayadana waata waa la daaweyey haddaad xanuunsanaysaan ama safar aad ku jirtaan ama midkiin uu ka yimaado meeshii uu ku dangudanahayey oo uu musqushii iyo ka yimaado yacni duurkii uu u aaday danta u aaday hadduu ka yimaado ama haweenkiinaba aada u galmootaan ood biyo weydaan intaad samayseen ama mid ka mida samayseen baad biyo weydeen markaasi tayamuma baa la leeyahy yacni boodhaysta oo carro u qasta carradaasina waa inay carro macnaha waxa weeye ay tahay daahir ah oo ayna nijaas ahayn sidaasaa la leeyahy macnaha wain kuntum mardaa haddaad xanuunsanaysaan xagga waa nabiga kusoo marnay waxaa laga wadaa maradkaasi waa haddii biyuhu ay dhib u geysanayaan waxaa soo gudagelayaa maradkaa iyadana oo macnaha waxa weeye meesha ku jira haddii biyihii iyadana qabow dartood aad isla marin weyn yacni qabow baad uga cabsatay qabaysna waad u baahantay yacni xal kalena ma jiro salaadiina waa kaa tegaysaa oo macnaha waxa weye qoraxdii baa kaa baryaysa
biyo kulna ma aad heli karaysid ayadana macnaha waxa weeye biyaha haddii aad dhibaato ka daranto iyagoo kula yaal ama ma ee xubunku waaba bukaaba oo boog baa ku taal haddaad biyo marisana inuu caabuqo oo macnaha waxa weeye macnaha uu xumaado oo uu dhib keensadaad ka cabsanaysa middaa iyadaa baa loola jeedaa wain kuntum mardaa yacni biyihii baad iska daynaysaanoo marka waa tayamumaysaano yacni ilaahi subxaana wa tacaala taasuu idinku bedelay safartuna waxa weeye waa haddaad socoto tahay socotada ayada haddaad xanuunsanayso biyaha kula yaaleen ama yaysan kula oolin ood biyihii isticmaali kari weydo ama aad ka cabsato cabsi muxaqaqa aad ka cabsato waxaa ku bannaan inaad tayamumto biyihii haba kula yaalaan laakiin haddaad socoto tahay ood safar tahay biyana aada haysato ma aad tayamumi karayso safarta markaad tahay waxaad ku tayamumi kartaa un inaad biyo weydo waa middaa iyadaa macna waxaa kaleeto iyadana aw jaa axadun minkum min alqaa'iti waa kaan xagga kusoo marnay waxaa laga wadaa haddii aad ama saxarada ka timaadaan ama kaadi aad ka timaadaan idinkoo macnaha soo kaajay ama soo dango qaa'idka waa inagii sheegno waxaan nidhi asalkiisa waxaa la yidhahdaa dhulka qaybihiisa hooseeya ee macnaha waxa weeye godan waagii horena iyo meelaha baadiyii tuulooyinkana hadda meelaha lagu danguto ee la aado wey intaan musqulaha iyo waxaan la samaysanin waxa uu laga wadaa hadda luuqadeennan taataree magaalo haddaad musqusha ka timaadaan ubaa laga wadaa waxaana lagaga kinaayoonaya oo waxoogaa afka laga warwareejinaya haddaad soo saxarootaan ama soo kaadidaan intaasaa sharcigu ka xishoonaya oo afka ka warwareejinaya macna ama ma ahe aw laamastumu nnisaa'a haweenka aad u galmootaan lamsigaas labaa la isugu khilaafsan yahay mufasiriinta waa inagii xagga kusoo sheegnayo in taabashadii gacantahayd loola jeedo iyo in galma loola jeedo taabashadana lamasa waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagaga kinaayoodaa galmada haweenka loo galmoodana waa lagaga kinaayo tooda baa loola jeedaa marka khilaafkaasi waxaa ku salaysan mas'alada caankee taqaanaane haweenku waysada ma jebiyaan mise waa jebiyaan halkaasay ku salaysanta aw laamastum taabashaa laga wadaa ninkii yidhaahdaay haweenka taabashadoodu waysaday jebin bay qabaan macna waa shawaaficdii iyo madhabka macnaha soomaalidu haysato wey ninkii yidhaahda aw laamastum galmaa laga wadaa haweenka loo galmoodana macnaheedu waxa weeyaan taabasho mujarada oon galma la soconini waysada ma jebinaysa wey macna halkaasay marka fiqigu uu ku salaysan yahay sida raajixa haddaad doonayso adiladu xoojinaysana axaadiista nebiga marka la aado salawaatullahi wasalaamu calayh inaysan haweenku waysada jebinin weeye sidaasa macnaha axaadiisu ay kutusaysa maxaa yeele nebigeenna salawatullahi wasalaamu calayh xaaskiisa ayuu taaban jiray intuu taabto haddana iska tukan jiray isagoo waxba weydiisanin bal salaadda isagoo ku jiroo salaadda tukanay ayuu lugta ka taaban jiray nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh axaadiistaasi marka waxay rajaxaysaa qowlka odhanaya inaysan haweeney la taabtay ama ajnabi ha ahaato ama yacni waxa weye qaraabo ha ahaatee haweeney la taabtaay inaysan weyse jebinaynin saasaa raajix laakiin masalada khilaafkeeda halkaas ku salaysay ayadana middaa iyada awey laamastumu nnisaa'a khilaafka ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas baa ku jira fuqahada macnaha waxa weeyaan afartuuna meeshaa unbay kala mareen qolya waxay yidhahdeen macnaha duuduub ahaanba waysada waa jebinaya qolana duuduub ahaanba ma jebinaya qolana hadduu shahwo u taabto unbay jebinaya haddii kale ma jebin tafsiilkaasay geliya qowlkaa duuduub ahaan inayna u jebinaynin baa macnaha raajix haddii aydaan intaad samaystaan aydaan biyo helin maxaad samaynaysaan tayamuma oo waxaad ku tayamumtaan carro saciidka waa nagii soo sheegnay waxaa la yidhaahdaa wax walba oo arlada dusheeda saara dhagax ha ahaado qori ha ahaado geed ha ahaado wax walbo arlada dusheeda saara saciid baa la yidhahdaa laakiin halkan waxaa laga wadaa axaadiista nebigaa fasirayso carraa laga wadaa maxaa yeelay xadiidkii nebiga sal alla alay wasalam uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun min alambiyaai qabli xadiidkaa waxaa ku soo arooray in uu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi carradana dhahaaraa la iiga dhigay macna marka taasaa fasiray riwaayadaasa caddaynayso saciidku carraa laga wadaa halkaana waxaa ku rajaxan qowlka imaamu shaafici uu maray oo odhanaya in lagama maarmana ay tahay carro soo raacda gacanta inay meesha jirto macna sidaas wey macna carradu sidoo kaleeto waa inay daahir tahay culimmada qaar ka mida waxay qabaan wax walbo arrada dusheeda saareen inaad ku tayamumi karayso madhabkaasoo kaleeto waxaad mari kartaa goorta aada weydo wax carro la yidhaahdaba xabis baad ku jirtaa derbi aan carro lahaynna meesha waaba ku yaalaaba ama diyaarad baad saarantoo salaad baa ku qabtay waysena waad wey meelahaasoo kaleeto macnaha waxa weeye yacni qiilkaa isagaa iska mar laakiin inta aad heli karayso carro heli karayso yacni waxa weye haka boodin sidaas wey tayamumkii qaabkii loo tayima waa la sheegayo wejiga iyo gacmaha masaxa lay ayadana
qaabka loo masaxayo gacmahoo dhan lama masaxaye gacan haddii la yidhaah yacni cukurka horena waa la dhaha waxaa kaloo la yidhaahdaa gacanta oo dhanna waa la yidhahdaa hadda waxaa laga wadaa cukurka hore ayaa laga wadaa qaybta hore ee gacanta umaad masaxaysaan labada gacanta intaad ku dhufataan unbaad labada qaybaha hore saa u masaxaysaan wey macana gacanta marka la masaxayo oo lu tayamumayo loo boodhaysanayo in ilaa la gaadhsiiyo suxulka boodhaysiga la gaadhsiiyay waa madhabka shaaficiyada wey waana laga xoog baday xadiis daciifaa ku soo arooray axaadiista saxiixa laakiin saxiixaynka iyo keyrkood ku soo arooray waxay ku tusinayaan inuu nebigu sal alla alay wasalam tayamumkiisa markuu tayamumayo cukurka hore keliyata inuu masixi jiray gacmaha wejigana uu masixi jiray markaa kadibna tayamumku intaa u ba-aan jiray sidoo kaleeto waxaa iyadana laga xoog badan yahay madhabkeenna macnaha waxa weeye qowlka uu qabo oo ah in macnaha waxa weye laba goor carrada dhulka laga soo qaado oo laba goor dhulka lagu dhufto marna wejiga loo soo qaado marna labada gacmood loo soo qaado ayadana waa laga xoog badan yahay xadiidka ku soo arooray waa xadiid daciifa waxaa xoog badan hal mar keliya in la soo qaado oo wejigiiyo gacmahaba laysu mari hal mar baad dhulka ku dhufani wejigaad ku masixi markaa kadibna labada cukuree hore ayaa saa ugu masixi tayamumkaaguna waa dhammaystiray sidaasi waa aqwaasha raajix ee axaadiista nebigu ay rajaxayaan salawaatullahi wasalaamu calayh marka madaahibta laga yimaado sidaasi minhudaa iyadee wa aydiikum minhudaa iyadaa ayada lafteeda ma tabciidiya mise waa ibtidaau lgaaya laysugu khilaafeen oo waxaa ka dhalanay yacni ibtidaau lgaaya haddii aad tidhaahdo waxaa lagama maarmaana dhulka meeshii inaad gaadhsiiso gacmaha laakiin inay wax soo qaadaan shardi maaha tabciidiya haddaad tidhahdana carradii qaar ka mid a inay gacmaha soo raacaan waa shardi oo waa qowlka shaaficiyada weeye meelahaasay macnaha ku wada jiraan aqwaasha ahlilcilmiga ee macnaha waxa weeye aan leenahay xaggee baa waxaanay ka yimaadeen macna fududayntaa ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo fududeeyey oo goortaad xanuunsanaysaan wax laydinka fududeeyey biyihii haddaad weydaan qaab kaleeta laydinku bedelay waxaasoo dhan waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonayaa in uusan diinta dhexdeeda wax cidhiiriya idin gelinin xaaladi markay idinku adkaataba xaalad kaleetoo sahlan baa laydinku bedelay ayadoo takaaliifta sharcigu iskaba wada fududahay haddana xaalaadka qaarkoodoo laga yaaba inay idinku adkaato alla subxaana wa tacaala waa idinka wareejiyey xaalad kaletood kari kartaan baa laydinku bedelay xalaytana waa inagii soo maraynay markii wax la xaraameeyey xaaraamtii xaalaadka qaarkood haddaad u baahato in lagu xalaalayo cuni karayso ilaahi subxana wa tacaala naxariistiisa wey midaas alla marka ma doonayo inuu wax idinku cidhiidhiye laakiin wuxuu doonayaa inuu idin nadiifiyo idin dahiro waxaa kalou doonayaa nicmadiisa inuu idinku dhammaystiro nicmatu diini wadunya inuu idinku dhammaystiro alla doonaya subxana wa tacala arrinkaana wuxuu idinka mudan yaha alla inaad u mahad celisaano aad ku shukridaan alla subxana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow idaa qumtum haddaad istaagtaan ila asalaati salaadda haddaad isu taagtaan maahe idaa aradtum haddaad doontaan alqiyaama istaag ila asalaati loo istaaga haddaad damacdaan oo maxaad ka istaagaysaan qolya waxay leeyihiin mar ruux walba oo salaada inuu isu taaga rababaa wayse laga raba maya ee waa hadduusan wayse qabin sidaasaa lagu qaydaya ama waxaa loola jeedaa idaa qumtum ila asalaati salaada markaad u kacdaan ood hurdo ka kacdaan ilaan markaa waysaa waajibi hurdo markaa ka kacdaan oo salaada u kacdaan adiga inaysan waajibeen ruuxa hadduu sii weyse qabay hadalkan kadaasa kuma dhacayo haddii uusan yani waxa weye waajib kuma aha inuu weysaysto macna haddii aad damcdaan salaada inaad isu taagtaan faqsiluu waxaad dhaqdaan wujuuhakum wajiyaalkiina dhaq wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa ila almaraafiqi suxullada laga gaadho iyo maca suxullada macnaha lala qabo wamsaxuu waxaad masaxdaan biru'uusikum madaxyaalkiina masaxa yacni madaxa masaxa hadday tima ku yaallaanna timaha masaxa hadduu tima la-aan yahayna macnaha waxa weye isaga undusha ka masaxa wa arjulakum waqsiluu waxaad dhaqdaan arjulakum lugihiinana dhaqa ila alkacbayni aanqowyada laga gaadho waxa waajibkaa waa ilaa aanqowyada un laakiin haddaad ka badiso oo aad dheerayso waa fiicanta maxaa yeelay nebigu sal alla alay wasalam bilada yani waxa weeyaan yani waxyaalaha laysku qurxiyo ee maalinta aakharo la bixin doono xullida la bixin doono ee dadka muslimiinta lagu qurxin doono nin walba waxay u gaadhi doontaa meeshii weysadiisa u gaadhsiin jir marka waxoogaa inaad yaro dheeraysahay ma xuma laakiin inta waajibkaa waa un intaa macna wain kuntum haddaad tihiin junuban kuwa janaabo qaba haddaad tihiin oo waad qarowdeen ama waad galmooteen ama macnaha waxa weye si kalaabaad junub ku noqoteen fadaharuu dahaaro qaata oo qabaysta
wain kuntum haddaatihiin mardaa kuwa xanuunsanayo oo xanuunkaasi biyuhu ay dhib u geysanayaan dhibku ay u geysanayaanoo xanuunka ama boog buu noqon karaa ama ruuxii baaba ruux xanuunsanahayo oo aan weysadii u kici karina cid u kaalmeeyana aan haysanin waa duq weyn oo da-aho yacni waxa weeyaan aan weysadii u kici karin xaalaadkaasoo kaleeto macnaha wain kuntum mardaa haddii aad xanuunsanaysaan oo kuwa xanuunsanaya tihiin ow amase calaa safarin safar dushii aad ku sugan tihiin oo socoto atiin aw amase jaa uu yimaado axadun mid oo minkum idinka mid ihi min alghaa'iti hadduu ka yimaado meeshii uu ku saxara gudanaya iyo musqushii hadduu ka yimaado aw amase laamastum haddii aad u galmootaan annisaaa haweenkii haddaad u galmootaan intaa mid ka mid a haddaad samaysaan oo falam tajiduu aydaan helin maa an biyo intaasoo dhan ma wada ahee wain kuntum mardaa ka reg in kuntum mardaa ka reg haddaad safar haddaad xanuunsanaysa waxaa nidhi ayadu biyaha ma kula yaalan amaysan kula oolin ayada kuma jirto biyaha helid la-aantooda tayamumku markuu waajibayo waa inta kale waa haddaad socoto tihiin ood biyo weydaan ama ma ahe weysadu idinka jabto aada musqusha ka timaadoona soo kaadidaan ama aada soo saxarootaanoo weysadu saa idinkaga jabtood biyo weydaan ama ma ahe haweenkii aada u galmootaanoo qabays u baahan tihiino aada biyo weydaan intaa mid ka mida wey macna falam tajiduu aydaan helin maa an biyo aydaan helin fatayamamuu waxaad u qasadaan ama ku boodhaysataan saciidan caro dayiban oo macnaha yacni daahir ah caro daahira ku tayamuma oo famsaxuu waxaad masaxdaan biwujuuhikum wajiyaalkiina masaxa iyo wa aydiikum cukuradin yacni waxa weeye gacanta qaybteeda hore unbaa laga wadaay gacantoo dhan ma aha ilaa suxullada in la gaadhsiiyana waxba sharti ma aha famsaxuu waxaad masaxdaan biwujuuhikum wajiyaalkiina iyo wa aydiikum gacmihiina minhu yacni carada xaggiisa ka masax carada xaggeeda ka masaxo carada wax ka soo qaad maa yuriidu allahu alla ma uu doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax cidhiidhi ah walaakin yuriidu wuxuuse doonayaa liyutahirakum inuu idin nadiifiyu alla doonay subxaana wa tacaala waliyutima inuu dhammaystiruu dooni nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina ku dhammaystiro lacallakum tashkuruuna si aad u mahad celisaano alla aada ugu shukridaan subxaana wa tacala واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا واحد حسان مسلمين فيه نعمة الله إلهي نعمتي حسا وحصوصا عليكم دشين أغني معي نعمة قلبنا كحسا عربنا كحسا وميثاقه بلن كيسين حسا الذي بلن كاس يهشيس كاسو واثقكم إذن كلا بلمي به إساق ballanka alle ee uu idinkula ballamay ee idin dhex maray isagiiyo idinkana bal midkaana xusa id waqti ayuu idinkula ballamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa waan maqallay amarkaaga iyo warkaaga allow wa adacnaa waana yeelnay wattaqullaha war alla ka cabsada ina allaha alle caliimun kii og weeye bidaati suduuri laabaha waxa uu saaxiibkay laabta dhexdeeda waxa yaalla oo ama kufri ama nifaaq ama iimaan ama shaki ama jahli wuxuu doonay ha ahaadee allah subxaana wa tacala waa ogyahay afkaarta iyo waxa ku jira qulubta sidaas waxay ku soo degtay bay culimada qaarkood leeyihin nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh maalmaha ka mid isagoo socota oo saxaabada la socda ayaa goortii qoraxdu ay kululaatay yaa meel la tegey saxaabadu marka waxay samayn jireen geed hadle intay nebiga u fiirfiiriyaan salawatullahi wasalaamu caleyh oo geedka hoostiisa dejiyaan iyo iyagu hoos kale iyo geedo kale raadsan jireen geedkii bay kaga tageen asagoo nebigu iska hurda salawatullahi wasalaamu caleyh seeftiisana geedkii ka laalaadiyey ayuu nin reer baadiya u yimid seeftii intuu la baxay oo uu siibay ayuu la dul istaagay seeftii oo siiban oo nebiga sal alla alay wasalam dushiisa macnaha saaran ayuu nebigu baraarugay markaasuu wuxuu yidhi kii acraabiga ah yaa iga kaa celinaya maxamedow markaasu wuxuu yidhi ilaahay baa iga kaa celin wuu ku celay yaa iga kaa celinaya ilaahay baa iga kaa celin saddex goor markuu ku celiyey bay seeftii gacantiisa ka dhacday nebigaa qaatay salawaatullahi wasalaamu calayhi isaguna dowrkiisa markaasuu yidhi yaa iga kaa celinay markaasuu wuxuu yihi kun khayra aaqidin nin seeftaa qaada kii ugu fiicnaa noqonayo iska faydaa buud macna nebigu isagoo sidaasi ninkii acraabiga u ag fadhiyo oo aan weli wax tilaabaa ka qaadin yuu saxaabadiisa u yeedhay arrinkii marka u sheegay nebigu salawatullahi wasalaamu maya tan waa midda dambe aayadda dambe aayad dib inoogu imaan doonto wey macnaha
مدا ما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم هل كانوا يمعنى مناسبة أيضا ميثاقا يوحوها يعني اللبن مد بوالد هذا المفسرين أو إصدامرنا ميثاقا كذا اللبن مد بوالد هذا بلن كان كذا أي قليل ذاتك لها الليو وخلق قوضا ميثاقا لقلينا وكي إنه إيمان دون في سورة الأعراف وإذ أخذ الله ميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم يعني عرورة آدم أو مركو نبرك آدم انتو كسو قادة الله بلنت لقلي مدى إيضا أو بلنتن إيضا ولا شيء لكن واحد لو بديه أو جمهورته بديه بلنتني إني تاي بلنتي ليلة العقبة هذينكي نبي صلى الله عليه وسلم لمنك أنصارتها إيه مدينة كيم ومكة ومعنى وحوي هشيسك كلا قلي مدى إيضا أبا لقوضا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكسها سنتها سيدانا معناه واتفير كاننا اللوبدين واذكروا روح الحسان نعمة الله إلهي نعمدي سحسة وحسوسة عليكم دشينا وقلن أي إيه وميثاقه بلنكيس الذي بلنكاسه واسقكم وإذن كلا بلما به إساق يعني وإذن كلاه الشيء إذن كنا حنبارتين إساقون إذن حنبارتين بلنكاسي وحوها إن أي معناها وحويا أي رسوش رب الرميانو diinta Allah ay garab istaagaano nabiga sallallahu alayhi wasallam ay u gargaaraan ballanka isaga markii aad gashay waqti ayaad ballanka gashay oo Allah subhanahu wa ta'ala aad la gasheen oo ballantaas idinka qaaday qultum atirada sami'na waan maqalay hadalkaaga wa adacna waana yeelo waa fulinayna bal arrinka isaga xusuusta ballanta iyada qalbiga iyo carabka ka xusuus wattaqullaha alla ka cabsada inna allaha alla aliim fi ogoyo bidaati suduri laba waxa ku jira fi ogoyaan يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا رميهم كونوا وحد أهاتان قوامين كوة تاجنان بدن أهادا كوة تاجني بدن حق كوة تاجني بدن لله إلهي درسي أبو تاجني بدن إلهي درتي كوا أتاجني بدن أهذا شهداء مرخاتية أهذا بالقسط عدالتكم مرخاتك مرخاتي فريسان كوا عدالتكم مرخاتي فرا النظرة ولا يجرمنكم يوسن إذن كحن بار شنآن قوم قل عرضوا عولاد أضوها يساني يسن إذن كحن بار على ألا تعدلوا إن العدالة كتكتان عدالة إن إذا سمين والعدالة كتكتان عرضت إذن كدحيسي يسن إذن كحن بار اعدلوا عدالة سمية هو عدل قاسا أقرب أدو للتقوى الله كعبسك إسكا أدو واتقوا الله ألنا كعبسد إن الله ألا خبير في أبوي بما تعملون وحا سمين سان حقال بوي وحا لها سان هو تاجنان بدنه إلهي دراجي تاجنان بدن معنى هذا وحوي حقا تاجا مروا البنا تاجنادا تاجنيدا أتاجن فيهن إلهي درتي هاي ذكاها وحضنها قوة ذننا لأجل الله ابتغاء مرضات الله مدى إيضا أتاجناد أو حق مرول بأقرب إستاجا لكن ضمأت قوة ثانية استسعى ثانية هل يدين كشرقائيو هل يدين مقلائيو مصالح دنيوية قوة ثانية ميع ساسا معنى للي كونوا قوامين لله إلهي درتي أتاجني بدن هذا عدال مركز مرخاتي فريسانا عدالتكم مرخاتي فرا وعدالتها كتجنا معنى وحوي markii inta lay ayaa waxa la yiraahdaa qoliya aad u cadaysantii hiro ay idinka dhaxayso colaadi idinka dhaxaysay colaadii iyo cadadii aad u qabteen yeysan idinku xambaarin oo yeena idinka keenin inaad cadaaladda ka tagtaan ee cadaaladda mar walba sameeya saasoo Allah subhanahu wa ta'ala macnaheedu waxa weey cadaaladda waa inaadan xadgudubna sameeynin meeshii wax loogu talagalayna inaadan ka soo kordhicin aqwaashaada iyo afcaashaada waxa sameeynayay waxa ku hadlaysaba meeshii sharcigu wax ugu talagalay ee uu wax dhigay waa inaad yaani waxa weeyaan aad wax dhigto hadaad gudubtana cadaaladii waa ka gudubtay hadaad ka soo kamartana macnaha waxa weey cadaaladii iyadana waa ka gudubtay macnaha waa ka soo dhacday yaani wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu wa nabi soomarnay yaani dadka aan cadaaladda lagu aqoonin ee cadaaladii aysan agtooda oolin iyo garsoortoona
ayaa waxaa lagu yaqaanaa haddii ruux ay xurdufi dhex mar ama ay isku xumaadaan ama cadho ay u qaadaan in ay macnaha waxa weeyaan ayna iskala reebine ay macnaha waxa weye xadgudub ku sameeyaan cadaaladiina ay ka tagaan oo cadhadoodaas iyo ciilkaasi uu cadaalad darro ku xambaaro qolyaha aan cadaaladda lagu aqooninba yaa arrinkaasi lagu yaqaana laakiin waxaa loo baahan yahay sida aad ugu markhaati kacaysaan midka xigaalkiina ama naftiinaba ugu markhaati kacaysaan haddii laga gar leeyahayna dushooda ku markhaati kaca sida aad cadowgiina dushiisa ugu markhaati kacaysaan haddii uu laga gar leeyahay hadduu gar leeyahayna isaga u markhaati kaca dadkana macnaha waxa weeye cadaaladaasi ku miisaama oo cadaaladda marnaba ha ka tegina saasuu alla odhanaya subxana wa tacala xataa waxa weeye haddii uu xaqu ka soo fulo xaqu xataa haddii uu ka soo fulo kaafir hadduu ka soo fulo mubtadic hadduu ka soo fulay adoon fiirinin macnaa waxa weye hebel colaad baa naga dhaxayso waanu isla xognahayo wax alla wuxuu yidhaahdo oo dhan ma ogoli oo waa diidaya oo waa ku gaxaysoonayaa waxa weeyaan calaa an laa tacdiluu yana idinku xambaarin cadaalad xumo bal waxaa ka sugan axaadiista nabiga xaqnimadiisa inaad u qaadato biqabdi nadar cidda uu ka soo fulay adoon fiirinin macnaa waxa weye hebel colaad baa naga dhaxayso waanu isla xognahayo wax alla wuxuu yidhaahdo oo dhan ma ogoli oo waan diidaya oo waa ku gaxaysoonayaa waxa weeyaan calaa an laa tacdiluu yana idinku xambaarin cadaalad xumo bal waxaa ka sugan axaadiista nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa ku sugan in macnaha waxa weeye abu hurayre iyo ragle in ay shaydaanka intay wax ka qaateen xadiidkii dheeraa ee zakada uu ilaalinayey ninkii la odhan jiray abu hurayre ee dhowr goor uu u yimid nebi markuu macnaha waxa ugu dambeysay u damcay inuu ka fakado wuxuu ku yidhi niyo waxbaan ku barayaayo faraha iga qaad waxoogaagana iga qaado hayay buuhi kaan yacni wuxuu yidhi markaad seexanaysa aayatulkursiga ah shaydaan kuusoo dhowaan maayo habeenkaagaas waa shaydaan wax baray aayatulkursigii buu la yimid oo nebiga ula yimid salawatullahi wasalaamu caleyh markaasuu nebigu yidhi ma taqaanaa dhowrka habeenninka kugu soo noqnoqonaya abu hurayre mayabu waa shaydaan buu run buuna kuu sheegay markuu ku yidhi aayatulkursiga akriso laakiin been baa macnaha waxa weye u haalib oo been baa lagu yaqaana marka aayatulkursigii shaydaan bay ka soo bushayo tuur lama odhanna abu hurayre ma ujeeda xaqu meeshuu dooniba ha ka soo bulay huwa axaqu bilitibaac in aad raacda asaga u xaqnimo leh biqabdi nadar ninkuu ka soo fulay ha fiirinin macna laakiin colaad baa naga dhaxaysay isma jeclin iyo waabaanu isjiidnay iyo xurgub baa naga dhaxaysay iyo waxaasoo dhan macnaha ka ba yaana kugu xambaarin cadaalad xumayatan kugu xambaarin yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo kunuu waxaad ahaataan qawaamiina kuwa taagni badan ahaada lilaahi alla daraaddii kuwa u taagni badan shuhadaaa kuwa markhaatiye ah bilqisdi cadaalad ku markhaati kacay yacni weligiin garsoorka iyo cadaaladda la jiro walaa yajrimanakum yaysan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qola yacni colaadood iyo cadhadood yaysan idinku xambaarin aada u qabtaani calaa an laa tacdiluu inaad cadaaladda ka tagtaan yaysan idinku xambaarin icdiluu cadaalad sameeya huwa cadaaladaasa aqrabu u dhow litaqwa alla ka cabsiye waa meesha raggu ku kala baxo yacni ruux aada jeceshahay iyo dad macnaha waxa weye waxba aadan qalbiga ugu haynin inaad cadaalad u samaysahay nin walba waa ka surowda laakiin meesha nin rageed mooyaane nin kale aan ka suurtoobin waxa weye cid wax idinka dhaxayso colaad iyo aad cadho u haysahay haddana cadaalad u sameeyo hadduu gar leeyahay garab istaag yacni waxa weye ninka tegay unbay ka suurta gashaa oo iimaankiisu xaddu rusuuq uu gaadhay macna cadaalad sameeya huwa aqrabu litaqwa wattaqu llaha alla ka cabsada ina allaha alla khabiirun kii og weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wacada allahu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum makfiratun waajrun cadiim wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay aladiina kuwii wuxuu u yaboohay aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan ayuu alla u yaboohay jannu u yaboohay man lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf baa u sugnaaday iyo waajrun ajri baa u sugnaaday cadiimun oo weyn yabooha laftiisiiba waa yacni ajri weyn iyo dembi dhaaf bay leeyihi ajrigaa weynna waa jannada rabbi subxaana wa tacala waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljaxiimi jaxiimo dadkeeda wey qolyaha jaxiimo galayo macnaha waxa weye haddii dad badan laga soo sheekeeyey awaamir badanna laysa soo siiyey qol dadku waa un kala baxayaan takaaliifta iyo xuduudda ilaahay dad macnaha ilaaliya iyo dad ka tillaabsado oo haba yaraatee aan u aabayeen qolyaha aan u aaba yeelay oo ku dhaqmay oo ilaaliyey mu'miniin baa la yidhaahdaayo camal saalixay la yimaadeeno dembi dhaaf iyo waxay leeyihiin jannay leeyihin qolyaha kaleetana gaala la yidhaahdaayo beenaalayaal bale diinta alla beeniyayo wax jaxiimo qolyaha gelayo weye macna
wacada allaahu alla wuxuu yaboohay alladiina kuwii wuxuu u yaboohay aamanuu rumey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan lahum inuu u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajrigaasoo cadiimu wey waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga beeniyey ulaa'ika kuwaasa asxaabuuljaxiimi jaxiima dadkeeda yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alla rumeeyeyow udkuruu waxaad xustaan nicmat allah ilaahay nicmadiisii xusa calaykum dushiinna uugu nimceeyey id waqti ayuu idin nimceeyey hamma ay damceen qowmun qolo ay damceen an yabsutuu in ay fidiyaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda ay usoo fidiyaan inay gacmaha xaggiinna usoo taagaan oo dhib idin gaadhsiiyaan markay damceen oo fa kafa uu reebay alla subxaana wa tacaala aydiyahum gacmahooda cankum xaggiinna uu ka celiyey wattaqullaha alla ka cabsadaa wa cala allaahi alla dushiisana falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna kuwa alla rumeeya ha tala saarteen oo hawsha u dhiibteen aayaddani waa tii aan sabab nusuulkeeda xagga macnaha ku sheegnayo aan macnaha waxa weyaan aayaddii horeetay aan macnaha waxa weye sheegaynay ninkii acraabiga ahay ee nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh isu soo dultaagay ayay ku soo degtay bay qaarkood leeyihin mufasiriin waxaase loo badanya inay ku soo degtay qolyihii yahuudda ahaa ee reer banu nadiir la odhan jiray nebiga sal alla alay wasalam iyagaa waxaa ka dhexeeyey isgaashaan buursi irdiyada laysla bixiyo iyo magtana waa laysku ogaa laba nin baa marka gacanta saxaabada nebiga sal alay wasalam ku dhintay yaa lagu dilay yacni laguna dilay si kama ah labadii nin buu nebigu sal alay wasalam intuu reer banu nadiir u tegay buu wuxuu yihi magta ila bixiya waynu isku ogeyn arrinkan noo imow bay dheheen marka noo imowdii ayay nebiga sal alay wasalam waxay u dabareen mu'aamarad iyo shirqool bay u dabareen inay dilaan bay damceen yacni nin ayaga ka mida geedkii talada geedkii laysugu imaanahayey ee lagu goosanahayey macnaha waxa wey magta lagu goosanay yay mid khayr daran fuul intay yidhaahdeen baa markuu soo fadhiistaba dhagax dusha kaga soo daayo meeshaa ku dhintay yidhahd arrinkii isaga ahaabaaba alla subxaana wa tacaala nebiga u sheegayo markiiba nebigu waa ka soo dhaqaaqay salawatullahi waslamu caleyh arrinkaasi marka wuxuu ahaa damac gaalada galay oo ay dadka mu'miniinta iyo nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh ay la damceen ilaahayna wuxuu ugu nimceeyey gacmihii ay soo fidiyeenee damceen inay ku dhibaan nebiga inuu rabbi ka qabtay subxana wa tacala ama ninkii acraabiga ahaa ee gacanta soo fidiyee seefta la baxay allah ka qabtay subxaana wa tacala sabab nusuulka midkaa doontaba dheh yacni aayadda xukunkeedu waa caam mu'miniinta ilaahay gaaladiibuu ka dafciyey kuwii maka joogay iyo furs iyo ruum iyo gaalo oo dhan buu ilaahay subxaana wa tacaala gacmahooda ka qabtay marka allaha gacmahooda idinka qabtay dhibkooda idinka hor istaagay midkaas allah subxaana wa tacaala nicmada idin nimceeye xusaa sidaasa la leey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo udkuruu waxaad xustaa nicmat allah ilahay nicmadiisa xusa calaykum dushiina ugu nimceeye id waqti buu idinku nimceeye hamma ay damceen qowmun qolo ay damacday an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum xaggiinna ay u soo taagaan aydiyahum gacmahooda gacan keliyoo la soo taagay ma ahee gacantu markii intay jidhka ka soo baxdo ay doonayso inay waxgeysato oo ay dhib riddo ayaa waxaa laga cabirayaa dhibkay geysan lahayeen baa waxaa laga cabiray gacmahay taageen macna gacmahay idiin soo fidiyeen fa kafa alla wuu reebay aydiyahum gacmahoodiibuu cankum xaggiina ka reebay yacni gacantay soo taageenay doonayeen inay dhib idinku gaadhsiiyaan buu alla celiyey oo dhibkoodiibuu idinka celiye wey macna oo allah idiin sheegay inay dhib idinku gaadhsiinayaan ama waad ka adkaadeen oo alla idin makeliyey oo dhibkoodii meeshaa ku baabi'iyey wattaqullaha alla ka cabsada alla ka cabsigaasa wax walba lagu gaadhaay wa cala allaahi alla dushiisana falyatawakal haddala saarteen almu'minuuna mu'miniinta tala saarteen macnaha waxa weye cadowgiina iyo gaaladu mahma cuddadoodiiyo cadadkoodu uu dhan yahay oo xooggoodu uu dhan yahayba haddaad ilaahay talada u dhiibataan ood ku kalsoonataanoo asaga aada wax u dhiibataan wax idin yeeli kara maba jiran laakiin haddaad meelaha warwareegtaan oo meelo kale aada wax ka baadhbaadhaan wax alla wax idiin qaban kara ma ay jiro macna walaqad akhada allahu mitaaqa bani israa'iila wabacatna minhum 12 naqiiba waqaala allahu inii macakum lain aqamtum asalaata waaataytum azakaata waaaamantum birusulii walaqad akhada allah alla wuxuu qaaday mitaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballankoodii buu alla qaaday wabaxasnaa waan bixinay minhum xaggooda waxaan ka soo saarnay 12 12 naqiiban oo xul 12 xul ama 12 sultaan ama ugaasig oo kaaba qabiilo abaan ka soo saarnay wa qaala allahu allana wuxuu yidhi innii anigu macakum la jirankiina yacni waa idin garab istaagaya waa idin gargaaraya lain aqamtum haddaad toosisaan asalaata salaada haddaad toosisaan oo wa aataytum aada bixisaan azakaata zakada aada bixisaan
oo wa aamantum aada rumaysaan birusuli rusushayda aada rumaysaan oo wacazartumuuhum rusushii aada weynaysaan oo aada garab siisaan oo wa aqradtum aada amaahisaan allaha alle qardan amaah aada amaahisaan xasanan oo wanaagsan yacni isaga dartii aada wax ula baxdaan baa laga wadaa amahdaas intaa haddaad samaysaan la ukafiranna wallaahi in aan tiri cankum xaggiina sayi-aatikum xumaayayaalkiina horta waan idinka tiri oo wixii dembiga waan idin dhaaf wala udkhilannakum wallaahi inaan idin gelini jannaatin jannooyinna waan idin gelin jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteedu alanaaru wabiyaalku ay qulqulayaan jannooyinkaas qiimaha lana waan idin gelin faman kafara ciddii gaalowda bacda daalika ballankaa aan wada gallay kadib een idinka qaaday kadib ciddii gaalowdaayay oo minkum idinka mida reer bani israa'iilow faqad dalla midkaasi waa lumay sawaa'a sabiili jidkii toosnaabuu ka lumay jidka dhexdiisii ayuu ka habaabayo yacni shaako iyo dhul cidlaa buu ku habaabay saasuu alla leehay subxana watacala macnaha reer bani israa'iil ballan baa laga qaaday ballanta miisaaqa waxaa la yidhahdaa ballan oo dhan lama yidhaahdee waa ballanta iyo heshiiska weliba dhaarta lagu adkeeyo oo macnaha waxa weeyaan laysu dhaarto ballankii marka dhaarta lahaa ayaa alla ka qaaday subxana watacala ballankaas waxay ahayd in macnaha waxa weeyaan ay ilaahay diintiisa garab istaagaan rususha ay wada rumeeyaan aynan diinta alla qarinin ballamo fara badan oo noocaasaa laga qaado kitaabkii tawreed ahaa inay ku dhaqmaan ballamadii faraha badneed ee laga qaaday ayuu alla subxaana watacala meesha ku sheegay waxaa kaleetoo alla uu leeyahay wabaxasnaa minhum 12 naqiiban naqiibka waxaa la yidhahda waa kaaba qabiilka wey yacni waa ruux xul ah waa oday xul ahoo inta laga soo dhex saaray qoyska laga soo dhex saaray loogu talagalay inuu iyaga matalo saas way macna waa meesha hadda ugaasiyada iyo salaadiinta iyo malaaqyada iyo meeshay ku jiraan way macna halkaasoo kaleeto qolyo noocaasoo kaleeta oo marka 12 ah ayaa reer banu israa'iil ka soo saaray macnaha waxa way ka soo bixin 12kaasi maxay qabanayeen marka 12kaasi waxaa la leeyahay laba hawloodba waa loogu talagalay waa midda koowaadee qowmkoodii inay keenaan oo ay u mubaayacoodaan sidii nebigaba salawatullahi wasalaamu caleyh ansaar markay ugu yimaadeen maka qowmkoodii ay ka mubaayacoodeen rag badan oo odayaal oo nebiga madiine ugu yimidna qowmkoodii ay ka mubaayacoodeen sidaasoo kale ahaayeen oo qowmkoodii inay soo geliyaan diinta oo nebiga u keenaan hawshaasaa loo saaray sidaasi waa suurtagal qolyo kalena waxay leeyihiin ma ahe waxaa loogu talagalo hawsha loo diray waxay ahayd kisada inaa imaan doonta ee magaalada baytulmaqdis la yidhaahdo markii reer bani israa'iil gala layidhi ayaa sahan ahaan waxaa loogu diray magaalada 12 nin oo 12kii qabiil kale matalay bal magaalada soo sahabiy oo nimanka jabaabirada ka soo warbixiyeen markay meeshii tageen ayaa kulligood waa wada cabsadeen nimanka waaweynankoodii iyo xooggoodii iyo waxunbaa argagaxiyeyo ayagoo argagaxsanoo indhaha taagaya soo noqday markaasaa waxa weeye hadalkii loo baahnaa inay uun soo gaadhsiiyaan maamulka iyo hoggaanka iyo nebiyullaahi muusa soo gaadhsiiyaan ayaa intaydan sooba gaadhin bay suuqa geliyeen reer banu israa'iilkii loo baahnaa inay dagaalamaanba meeshaasay fulanimo iyo cabsi ku wada dhacay ilaa 2 nin mooyaan xagga inoogu imaan doonto hawsha marka loo diray midaasay ahaydna qaar baa sheegaya culimada ka mid nimankaasaa la saaray rabbi ilahi subxana watacala reer bani israiil laga soo saaray allana subxaana watacaala wuxuu ku yidhi waan idinla jiraayo waan idin garab istaagaya haddaad fulisaan hawsha loo baahan yahay haddaad salaada oogtaan oo zakada aada bixisaan oo rususha aada rumaysaan rusushoo idin oydan kala reegin wey macana oo waxasartumuuhum taxsiirka waxaa la yidhahdaa xoojin waa la yidhahda xoojinta iyo tawqiirinta iyo weynaynta iyo ixtiraamka waa la yidhahda xasara waxaa kaloo la yidhahdaa edbintana waa la yidhahda ruuxa marka intaad garaacdo aada edbisana xasara waa la yidhahda meesha waxaa laga wadaa xasartumuuhum ilaan rusul ay edbiyaan abaalgud laguma siiyeen iyo wanaagi waxaa laga wadaa macnaha xasartumuuhum siyaaqaa ku tusayo macnaha aada xoojisaan oo aada weynataan oo ixtiraamtaan waa macnaha oo allana aada amaah wanaagsan amaahisaan waxaa laga wadaa tirtirti baa ku jira alla waxa lama amaahiye hadal arrintaa lagu qalqaalinayahay waxaa laga wadaa si waxa ilaahay uu jecel yahay oo xoolahan aada baxsataan arrinkaa haddaad samaysaan alla wuxuu leeyahay dembigiina waan dhaafi jannana waa idin gelini hoosteeda ay webiyaal qulqulayaan intaa kadib ballantaa kadib ciddii gaalowdana ruuxaaseeda waa ruux lumay oo habaabay un macna walaqad akhada allaahu alla uu qaaday miitaaqa banii israa'iila reer bani israa'iil ballankoodii ayuu qaaday wabaxasnaa waan dirnay minhum xaggooda yacni hadalka waxaa ku jira iltifaat oo walaqad akhada allaahu markii hore haybu hadalka ku socda
wabacasnaana waxa weeyaan khitaab buu isu bedelay takallum buu isu bedelay macna iltifaat baa la yidhahda yacni dadka hadalka marka lagu soo jidayo la sexlaysiinayo luqada carabiga asaaliibteeda ka mid ah mar waxii waxaa looga warramay sidii waxaan joogin oo kale looga warramay walaqad akhada allahu mitaaqa bani israa'iila hadalkii sidii wax laga warramayo oo kaleeto uu ahaa ayaa wabacasna annagaa dirnay mutakalim buu markiiba isu bedelay macna takallum buu isu bedelay marka waxaa la yidhahdaa yacni siyaaqa la badbedelayo hadalkaa la isjeclaysiinaya macna si aan loogu daalin oon looga nogin wabacasnaa waan dirnay minhum xaggooda 12 xaggooda xalay ka ahaadeen 12 12 naqiiban oo xul baanu ka dirnay lasoo xulay wa qaala allahu alla wuxuu yihi innii anigu macakum la jirankiinaan ah gargaar iyo garabsiin baan idinkula jira lain aqamtum haddii aad toosisaan asalaata salaadii wa aataytum zakaata zakada aada bixisaan waxay daliil u tahay reer banu israa'iil inay salaaduna waajib ku ahay zakaduna ay waajib ku ahay saasay daliil oo sharcigeena keliya ayna gooni ku ahay wa aamantum aada rumaysaan birusuli rusushayda aada rumaysaan oo wacazartumuuhum aada xoojisaan oo aada ixtiraamtaan ood weynaysaan rususha oo wa aqrabtum aada amahaysaan allaha alle qardan amaha aada amahaysaan xasanan oo wanaagsan yacni aada xoolihiinna wax kala baxdaan alla uu rabo oo jidkii uu rabayna aada ku bixisaan baa laga wadaa amaahda ee allah waxba idinkama baahna intaa haddaad samaysaan la ukafiranna waan tiri cankum xaggiina sayi-aatikum xumaayaalkiina idinka qarin oo idin tusi maayo wala udkhilannakum waan idin gelini jannaatin jannooyin baa idin gelin jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaalku ay qulqulaysa faman kafara cidii gaalooda bacda daalika ballanka aan wada gallay kadib ruuxii ku gacanseedoo ka baxay oo minkum idinka idinka midii faqad dalla wuu nubay sawaa'a sabiili jidkii toosnaadu ka lug fabimaa naqdihim miisaaqahum lacalnaahum wajacalnaa quluubahum qaasiyatan yuxarrifuuna alkalima can mawaadicihi wanasuu xadan mima dukiruu bihi walaa tazaalu taطalicu calaa qaa'inatin minhum ila qaliila minhum facfu canhum wasfax ina allaha yuxibu lmuxsiniin markay ballamadoodii ka baxeen ballamo fara badan oy ka baxeenna waa inagii soo marnay qaar badan waa inagii aakhir suurat nisa kusoo marnay suurat lbaqara qaar baan kusoo marnay yani ballanka baqoodii markuu batay ciqaabo fara badan baa ka dhashay oo ilaahi subxaana watacala uu ku ciqaabay aakhiriya adduunka ku dhacay fabimaa naqdihim jebintooda darteed ay jebiyeen miisaaqahum ballankoodii ayaa lacanahum u lacnadnay ballanka baqooda dartii ay ballamaha ka baxeen yaan u lacnadnay oo naxariista rabbi looga fogey wajacalnaa waan ka yeelnay quluubahum qalbiyaalkoodana qaasiyatan mid ingegan baan ka dhigay quluubtoodana mid qallafsan oo kakan oo haba yaraatee wax xaqa uusan geli karin baanu ka dhigay yuxarifuuna waxay doorinayaan alkelima weedha iyo ereyga ayay bedelayaan can mawaadicihi meelihiisiibay ka bedelayaan oo ereygay bedelayaan waxaa laga wadaa sidaan horeyba usoo sheego meela aan ku soo marray ama kelimadii meesha ku taalee tawreed ahayd intay ka qaadaan bay mid kale booskeeda soo dhigayaan ama ma aheen macnihii alla ugu talagalay iyo ujeedadiisii ayay ka leexinayaan kelimadiioo meesha ku taal oo tafsiirkiibay xumaynayaan way macna wayuxarifuuna alkelima can mawaadicihi boosaskii u yaalay iyo meelihii weedhu ay taallaybay ka bedelayaan oo ka wareejinaya wanasuu waxay halmaaneen oo ay ka tageen xadan dheef oo mimaa shay ka mida dukiruu lagu waaniyey bihi isaga wixii lagu waaniyey waanooyinkii loo jeediyey iyo awaamirtii iyo nawaahidii loo jeediyey qaar ka midana way halmaameen halmaankaasi waa cilmi iyo camali labaduba walaa tazaalu ma aad ka zuulaysid taطalicu inaad daalacanayso ood ku arkayso calaa khaa'inatin calaa firqatin koox dusheed khaa'inatin oo khaa'inad ah oo minhum iyaga ka mid ama calaa khaa'inatin calaa khiyaanatin khayaano dusheed inaad ku daalacanayso oo minhum iyaga xaggooda ka ahaa ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mida mooya khaa'iniin inay yihiino yacni wax isdaba mariyaano meeshii shalay aad kaga tagtay aada ugu soo hagaagaynina taana waa lagu yaqaana in yaroo iyaga ka mida wan wanaagsan mooyaane ee facfu iska cafi canhum xaggooda iska cafi oo wasfax iska dhaaf ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa sabafale kuwa sabafalkaasoo ku sameeyu alla kale oo sameeyu jecel yahay iska dhaaf fabimaa naqdihim sidii tii aan kusoo marnay fii aakhiri suurati annisaab oo kaleeto weeyaano fabimaa naqdihim bacdu waa sababiye wey maaduna zaa'ida wey macna fabimaa naqdihim fabisababi naqdi jebinta ay jebiyeen ballantooda ay jebiyeen darteed bay lacnadu ugu dhacday inta inkaaroodey ku dhacday fiil ballamihii lala galay markay kasoo dhixi waayeen oo ay jebiyeen koo waxaa ku dhacday naxariista ilaahay baa laga fogeeyey oo dayro wey naxariistii rabbi baa laga deeyey talabaadna waxa weye quluubtoodiibaa waxaa laga xidhay wax allo wax walboo khayr qaasiyada waxaa laga wadaa qaswatul qalbiga waxaa laga wadaa qalbigu inuu xumaanta la qabsado wanaaggana uu ka digo
waxa wixii tawxiid khayr maaha Allah ahmaal saalixa qalbigu hadduu ka diro wanaagana xumaanta iyo sharkana uu weeheshado qalbigaasi waa qalbi ingegay maantoo dhan haddii lagu dhawaaqo oo wax loo sheego oo la waaniyo iyo haddii shib laga yidhahdana meeshiisi ugu taagay quluubahum qaasiya wey macna fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah qoladaas ilahi subxana watacaala macnaha waxa uu ku sheegay yacni qolada quluubtooda dikri ilaahi ay ka ingeganta oo wax gelayaba uusan jirin si walba haddii loo waaniyo kuwaasi way kuwa inkaarkii halaagu uu ku dhacay macna quluubtoodiina waa la ingejiyey oo khayr oo dhan baa laga ingejiyey waa yani dhibka labaad ee ku dhaxay dhibka saddexaad ee ku dhaxay waxa weye weligoodba shar iyo xumaan iyo wax alla ka fogeeyo unbay ka shaqeen ilaahay diintiisii ayay isku dayayaan hawadooda inay raaciyaanoo ama meeshiibay kelimaadkii ka qaadayaan ama ka qaadi maayaane macnihiibay si xun u tafsiirinayaan oo hawadooda iyo say iyagu jecel yihiin iyo macaasiday gelayaan ayay doonayaan inay waafajiyaan oo diintiibay qoor qabanayaan macna intay qoor qabtaan ayay leexinayaan oo say doonaan u leexinayan taana waa inkaarkooda ku dhacday waxaa kaloo la halmaadeen wixii lagu waaniyey ee lagu soo dejiyey tawreed ku yaalayna wax badan oo ka mid ay halmaadeen waxaa laga wadaa halmaanka horta waxa weye dhaqankiisii iyo qaadashadiisiibay ka tageen midda labaadna qalbigoodii baa laga siibay oo cilmi ahaan iyo garasho ahaan xataa qalbigoodii waa laga siibay labadaba waa soo gelayaan macna waxaa kaleeto oo lagu tilmaamay mar walba waxaad ku daalacanaysa oo arkaysa oo macnaha mar alla markaad u fiirsataba kaaga soo baxaysa khayaano iyo wax isdabamarin iyo mar walba inay macnaha doonayaan inay balaayo maleeyaan macna khayaanadaasna waa lagu yaqaanaa in yaroo ayaga ka mida mooyaane intaasoo inkaara ku habsatay nimankii reer banu israiil khaasatan yahuudii waxaa markaa la mid a oo mufasiriintu ay leeyihiin waxaa soo gelay cid walba oo ballantii rabbi ka soo bixi weyey haddii iyaga lagula ballamay arrimaha annagana ballamaan laynagula ballamay sooma ballamaan qaadnay ballamihii iyagaa haddaan ka soo bixi weyne ede reer banu israiil miyaa laynaga jeceliya meesha maran ilahi bayna wada abuurtay subxaana watacaala laguma nicin dhalashada ay ka dhasheen iyo midabkooda iyo deegaankooda laguma nix laakiin waxaa lagu nacay ballamihiibay ka soo bixi waaye ballamihii ummad walboo ka soo bixi weydana yacni waxa weye intaa iyo in la dawtaalama fa bimaa naqdihim jebintooda darteed ay jebiyeen kadib baa waxay facfu canhum wasfax facfu canhum wasfaxdaas waxaa laleeyihin culimmada qaarkood waa mansuuka aayaddaasoo bacdamaa la yidhi qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh aayaddaasi markay soo degtay kadib iska dhaaf iyo iska daa iyo sasab meesha mayaan waa la layn sidaasay culimada qaarkood leeyihin qaarna waxay leeyihin mahe facfu canhum wasfaxa waxaa laga wadaa qolada mucaahidiinta ah ee ballanku idinka dhaxeeyo qoladaasaa laga wadaa macna fa bimaa naqdihim jebintooda darteed ay miisaaqoon ballankoodii jebiyeen yaa lacanahum u lacnanay oo naxariista looga fogay wajacalnaa waa yeelnay quluubahum quluubtoodana qaasiyatan mid ingegan baan ka dhignay oo khayr oo dhan ka ingegan yacni qalbigu inuu ingegaya waxaad ku garani wax walba haddii lagu akriyo meeshiisii buu joogaa waxaba yaraatee ta'asur iyo saamow ood ka dareemayso daliilka ugu weyn ood ku garan karto waxa weye khayr walba iyo daliil walba iyo xadiis walba iyo aayad walba haddaad dhegaysato noloshaadi wax iska bedeli maba jiraba shalayta waxaad qasanaysay baad maantana qasanaysa maarka taasi waxa weeyaan qaswatulqalbi bay daliil u waa ilaa qalbigaaga qoyaan hadduu ku jiro waxbaa iska kaa bedeli lahaa macna imaarada ugu weyne calaamada ugu weyne loo daliishaday macna yuxarifuuna waxay bedelayaan alkalima kelimaadkii iyo weedhooyinkii waxay ka bedelayaan can mawaadicihi meeshiisii uu yaallay bay ka bedelayaan meeshii alla uu dhigay iyo ujeeddadu ka lahaa ayay ka bedelayaan waa inagii soo sheegnay taxriifka reer banu israiil ay kutubtooda ku sameeyeen ama waa taxriif ay xuruuftii iyo kelimaadkii qaarkood meesha ka qaadeen ama ma ahe waa taxriif qasadkii iyo ujeeddadii alla uu ka lahaa intay ka bedeleen macnihii ay meel kale u jeediyeen oo ay qoor qabteen macna wanasuu waxay halmaameen xaddan dheef ayay halmaameen oo mimaa shay ka mida dukiruu lagu waaniyey bihi isaga waxyaalihii lagu waaniyey dheef ka midana way halmaameen yacni waxa lagu waaniyey ee dheeftaa waxa weye ay halmaameen waa sharcigii la amray iyo wixii laga reebay inay fuliyaan loo baahno ay ka tageen way macna walaa tazaalu ma aad ka zuulaysid tadalicu inaad daalacanayso calaa khaa'inatin calaa khiyaanatin khaainnimo dusheed oo minhum ayaga ka ahaatay khaainnimo xaggooda ka timid mar walba inaad daalacanaysood arkaysood la kulmaysana ka zuulimay sidaas way macna calaa khaa'inatin ismi faacil oo macnaha bimacnaa loola jeedo master waa suurtagal calaa khiyaanatin minhum
ama calaa khaa'inatin ismi faacil oo markaas sifo u ah mawsuuf meesha ka go-aanna waa suurtagalo calaa firqatin khaa'inatin minhum sidaana waa suurtagal ilaa qaliilan wax yar oo minhum ayaga ka mida mooyaane ee facfu iska cafi canhum xaggooda wasfax iska dhaaf ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafale muxsinka waxa weeye waa ruuxa ciddii xumaan ku samaysay iska dhaafa kaasaa lagu wada ixsaankana waxaa la yidhahdaa darajaadka yacni iimaanka darajaadkiisa midda ugu sarrayso la gaaro wey macana an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad ilaahay u caabudo sidii adigoo arkayo kale maxaa yeele haddaadan adigu arkayn isagaa ku arka ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله إذا كانوا يسمعون ومن الذين كوي حقنا قالوا يري إنا أنه نصارى من الله كوي حقنا أخذنا وحن كقرنا ميثاقا بلن كودي بان كقرنا وليها حقنا إيغنا بلن بان كقرنا فنسوا ويها المامين إيغنا حظا أيها المامين mima oo shay ka mida dukiru lagu waariyey bi isaga waxyaalihii lagu waariyey iyaguna qaar bay halmaameen fa agraynaa waan dhajinay oo waan dhignay baynahum dhexdooda alcadaawata cadaawad iyo walbaqdaa caro cadaawad ay isu hayaan iyo caro ay isu hayaan baan dhexdooda dhignay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay wa sawfa yunabi'uhum allahu allaana u warrami doona bimaa shay dartii kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwa sameey waxay samaynayaane gelayaan ilaahay baa uga warrami doono ku abaalmarin doona wey macana qoladii hore hadday yahuud ahaayeen nasaarana jidkoodii unbay mareen wey macana nasaarana ballan baan ka qaadnay iyagana oo ballanka laga qaaday waxay ahayd inay nebi ciise rumeeyaan kitaabkii injiilahaana ay ku dhaqmaan nebi maxamedna salawaatullahi wasalaamu calayhi ay macnaha waxa weye rumeeyaan haddii ay soo gaadhaan haddii kaleetana inuu imaan doono ay rumeeyaan ma ujeedaa tilmaamaha ku saabsanna inaysan qarinin ballamaha faraha badan baa iyagana laga qaaday ballamihii iyaguna mayna ka soo bixine in badanoo wixii lagu waariyey ka mida iyaguna ka tageen macna neef badan baa meeshaa ku seegtay sidaa markay ku dhacday baa iyagana ciqaab buu ilaahay ku ridayo ciqaabtii ku dhacday waxay noqotay inuu ilaahay subxaana watacaala dhexdooda colaad dhigay colaad iyo cadho iyo isnacayd ayuu dhexdooda alla dhigay subxaana watacaala ilaa qiyaamada laga gaadhayana colaadaas iyo dhibkaasi waa dhex oolaya macna yacni waa midda hadda dhex taala kooxaha iyo madaahibta nasaarada kaatooliga iyo protestant kuwa la yidhaahda iyo ardododiska kuwa la yidhaahda iyo yacni waxa weeye saddexda firqe ugu waaweyn hadda ee nasaaradu ay leeyihiin saddexdooda midda kale wax u ogol ma jirto mid walba midda kale agtooda gaalay tahay islaamku kuma jiraan nasaaro ma ahe waa mulxidiin bay u haysaa saas way macana diin ahaan waxay u ogol yihiin ma ay jirto mabaadi'da asaasiga ee tawxiidkana waa ku kala tegsan yihiino caqaa'idoodu macnaha waxa weye qolaba meel bay martaa macna marka waxa weeye hadday is arkaanna iyaga macnaha waxa weye xataa qolyaha kale iyaga isaga daran dagaalada aysa soo mariyeen iyo siday isu dhammeeyeen yacni waxa weeyaan taariikhda markaad akridaan waad la yaabaysaa macna firaqa iyaga waxay isku samayn jireen cadaawadaas marka ilahay baa dhex dhigay subxana watacala ilaa qiyaami saacana isuma imaan karaan isuma keeni karin bal waxa weeyaan hadda waad aragteen macnaha waxa weeyaan maaragtay ingiriis dagaaladan ka taagan ee macnaha waxa weyaan qad ay isku hayaan waa nimanka la yidhahda kaatooliga iyo yacni brotestanka waxa nafta isku hay ee islaynaya macna sidoo kaleeto xataa waxa weye nimankan hadda bosniyiinta la yidhahdo islaamku intuusan gaadhin ka hor waxay ahaayeen madaahibta nasaarada ka mida oo la ijtihaado oo nasaarada intooda kalea gumaysan jir markii islaamku gaadhay waxay ahaayeen bulshooyinka reer yurub kuwa ugu soo horreeya islaamka qaatay ahay ijtihaadkii firaqda kale nasaaradu ay ku hayeen daraaddeed iyo cadaadiskii darteed baa lagu qasbay macna sidaas weeyaan oo nima wax isu ogol maa cadaawaddaa ilahay baa dhex dhigay subxana watacala maxaa cadaawaddaa keenay wixii ilaahay uu ku waaniyey bay qaar ka mida ka tageen dheef bay meeshaa ku dhaafeen haddii diinta alle wax ka mida laga tagana xidhibxumada ka dhalataay waxa weeye dadkii ka tegey ee sheeganayey intay kooxa u qaybsamaan iyo firaq iyo madaahib iyo wax intay u qaybsamaan in iyaga foodiyo qoorta laisu geliy oy eber iska dhigaan waxba isu ogolaan waayaan macna soo meelo badan inama haysata inaga sidaas way macna maxaa yeelay diintii rabbi subxaana watacala inoo soo dejiyey baan qaar ka mida ka tagay si buuxda haddii diinta loo wada qaadan lahaa wax isdiidaba lama arkay wey macna ciqaabtaa ilahay waa wuxuu ka dhaliyaa yacni mar walboo sababkaa leh waa sabab musababkiisu ka dhalanayn ha fiirinin cidda lagu riday inay ayadu macnaha waxa wey si gooniya ha u fiirinin laakiin sababkii ma kugu xaqiiqoobay hadduu kugu xaqiiqoobay natiijadii way ka dhalan hadduuna sababkii kugu xaqiiqoobina natiijadu dhalamayso maa wa min aladiina marka agrayna aliqraa iqraaga macaani dhowraa la yidhahda haraa in la keenay min alharaa haraaga waxaa la yidhahdaa yani dhejin shayga wax isku dhejin sida xabadka oo kale iyo baalgaamka la yidhaahda iyo haraa waa la yidhahda
oo markaa waxay noqonaysaa fa aqraynaa waan dhajinnay baynahum dhexdooda alcadaawata cadaawad iyo walbaqda'a baan dhajinnay dhexdooda oo waxa cadaawaddii iyo cadadii laga dhigay sidii shay ku dhegan oon ka foqayna weligooda kale sidaasi waa suurtagal iqraa inay ka timid oo laga wado markaas waan ku xaraabinay yacni fa aqraynaa oo iqraaga waxaa la yidhahdaa markaad eyga ama shay intaad shay ku dirto weliba aad ku xaraabisana waxaa la yidhahdaa aqraa waa la yidhahdaa ayadana waa suurtagal waxaa laga wadaa uun macnaha yacni dhexdooda waxaan dhignay cadaawad iyo cara isu hayaan oo weligay dhammaan lahay wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa anagu nasaara baan nahayna akhadnaa waan qaadnay misaaqahum ballankoodii baan ka qaadnay fanasuu way halmaameen xaddan dheef ayay halmaameen oo mimaa shay ka mida dukiruu lagu waariyey bihi isag fa aqraynaa waanu dhajinnay ama waanu dhignay baynahum dhexdooda alcadaawata cadaawad iyo walbaqdaa'a haro ay isu caraysan yihiin iyo cadaawad ay isu hayaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay wa sawfa yunabbi'uhum allahu dib dambuuna allah uga warrami doonaa bimaa shayga kaanuu ay ahayn yasnacuuna kuwa sameey yacni dembigay gelayaan dib baa laysagoon ilahay baa kala xugmin doono kulligood midda xaqlaya midda xaq lahayn iyo haddayna kulligood wada xaq lahaynba maxkamadda allay hortegi doonaan subxaana watacala marka marxalada iyada yani mar baa la gaadhay xataa madaahibtan hadda madaahibtu sidoodaba islaamka yani waa sarwa cilmiyo waa wax lagu faanay laakiin haddii tacasub uu meesha yimaado tacasub oo nin walba anigu madhabkayga unbaa xaq oo uu meeshaa ku kobo wax alla wixii iga soo hadhayna waa baatil ay timaado meeshaasi waxaa imaanaysa markaasi in la isgaalaysiyo waxaana dhici jirtay wakti dhow ka hor ka midood xaq weeye meeshuu dooniba ha ka yimaadeen muslimiintu inay iskaashadaanna waa loo baahanya laakiin tacasub waxaan xaq ahaynoo loo ogolyahay ma jiro haddii kaleeto waxaa imaanaya iqraagaasaa imaanaya macna yaa ahlalkitaabi kitaabka dadkiisiiyow qad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulka nabi baa idin yimid maxamed ah sal alay slam yubayinu isagoo caddaynaya lakum idinka kasiiran wax badan oo mimaa shay ka mida kuntum aad ahaydeen tukfuuna kuwa qarin oo min alkitaabi kitaabka ka mida wax badan oo kitaabkii tawreeda ka mida iyo injiila ka midood qarin jirteen isagoo idin caddaynaya oo soo taagaya ayuu idin yimid nebi maxamed salawatullah waslamu caleyh wayacfu wuu iska dhaafi can kasiirin wax badanna wuu iska dhaafi wax badan oo aad yani waxa weeyaan aada gasheenna oo aan wax faa'iidaa ku jirin in la sheegana wuuba iska dhaafi macna qad jaa'akum waxaa idin yimid min allahi xagga alle waxaa idinka yimid nuurun iftiin baa idin yimid waa nebige wa kitaabun kitaab baa idin yimid mubiinun oo cad yahdi wuu hanuunin bihi kitaabkaas allahu alle wuxuu ku hanuuninayaa man itabaca ciddii raacda ridwaanahu ridihiisa ruuxii raaca ruuxii ridaha alla raaca kitaabkaasu alla ku hanuunin yahdi wuu hanuunini bihi kitaabkaasi allahu alle man cid ayuu ku hanuunin itabaca raacay ridwaanahu ridihiisa ciddii raacda wuxuu ku hanuunin subula salaami nabadgelyada jidadkeedu ku hanuunin jidka nabadgelyada wayukhrijuhum wuu bixini alla min adulumaati mugdiyaalka ayuu ka saari ila nuuri iftiinka ayuu u saari biidnihi isaga idankiisa ayuuna ku saari yahdiihim wayahdihim alla wuu hanuunini ilaa siraatin jid buu intikaabu ku hanuuni jidkaasoo mustaqiimkaas ahlulkitaabkii markii laga soo warramay oo yahuud iyo nasaaro bale ayaa hadda toos loola hadlo waxaa la yidhi ahlulkitaabow rasuulka nebi baa iyimid maxamed ah salawatullahi wasalaamu caleyh isagoo wax badan oo wixii kutubtii tawreed iyo injiil ku yaallo qariseen idiin cadaynay waxyaalaha qariyeen yani axkaam badan